maanta waxaan inahayaa video in badan la iga codsaday oo raggii dhahan sheekhow sidee lugaha loo dhisaa maadaama ragga Soomaalida ay aad u luga yaryar yihiin oo gabdhuhu ku caynayaan oo meel kastoo joogna leeyahay farax ma jabaasto nafti maanta waxaan rabaa inaan waxaas ka baxno exercise aad guriga ama gymka meel kasta ku samayn kartid oo sahlan ayaan ku barayaa يا exercise afar xabo weeye kan u sahlan baan ka bilaabayaa ilaa mid ka u adag yaan u gudbaynaa ya marka horta intaan video u guda gelin on exercise koowaad intuu waxaan ka codsanayaa inaad bahalkan lidaado aad YouTube-ka ilaa garaysid share garaysid subscribe igu qabatid maxaa yeelay videoyaalkan sameynteedu way dhib badan tahay waqti fara badan baan geliyay marka adiguna intaas ku taageer walaal waa iga codsi exercise koowaad marka exercise koowaad oo sameynayno waa mid easy ah laakiin bahalkan yiraahdo exercise ka mid loo yaqaan waxa weeye calf raise with wall support waa sababta aad wall support dadbiga aad caawinaadiisa ugu baahan tahay maxay tahay waxa laga yaabaa qof aan dhisnayn inaad tahay oo aad balance-ga ka dhacay marka gacmaha saaranaysaa midka koowaad sameynaysaa way waana wadaysaa labadaba wax yar baad kala sikinaysaa waxaad wadaysaa ilaa aw murqaada ka kaco ku celceli 500 xabo samee maalintii maxaa yeelay meesha aad ku sameyn kartaa maqaayada ku samee guriga ku samee meel allaale ee meesha rabtid yaad ku sameyn kartaa marka kan koobaad kaas weey saas baa wada celinaysaa waxa luga natural stand baa la rabaa inay kala jeedaan iyo adiga lugtaada sida naturalka ay tahay hadii lugaha badan kala jeedaan natural stand baa la rabaa sida caadiga ah oo lugtaadu ay tahay baad u sameynaysaa waa u jeedaan saas screen-ka waa jeedaan weeye dhabarka uu toosan yahay rabaa saas midna lama rabo bahalkan yiraahdo toos dhabarka adoo toosan yaad samaynaysaa midka labaad exercise ka labaad waa midka loo yaqaan body weight calf raise baa loo yaqaan waa exercise ka labaad exercise kan xogaa markaad muqayid dhista adiga dhan oo xogaa qof balance isku aadan yahay noqday waxaad samayn kartaa exercise ka bar ilaaba istaag wadada dhexdeeda ama istaag ama gurigaaga dhex istaag meel baad istaagaysaa meeshaas baad istaagaysaa faraad ku istaagaysaa saad u jeedin dhabarka waad toosinaysaa qorta waad toosinaysaa straight baad fiirinaysaa saas baa ku celinaysaa ilaa lugaha dab ka kaco baad ku celinaysaa farax ma jabaatada maadee gabar ku tiraado sheekh Axmed 5 daqiiqo lacag ugu bedelaya ya jimna uma baanid meel allaale iyo meesha rabtaad ku sameyn kartaa ma jabaastay ku leeyahay bal waa kaas raga sheekh Axmed daawada ma jabaasta dambe qof ay yiraahdo exercise ka saddexaad maadaama hadda aad balance iska dhistay exercise ka saddexaad waxaad qaadanaysaa dumbbells ka gymka ayaad kan ku sameyn kartaa ama meel kale ku sameyn kartaa haddii aadan gym haysan sidoo kale dhabarka toosinaysaa toos baa u istaagaysaa labadaba wax yar baa kala fogeynaysaa faraha ka istaagaysaa saad uga jeedid laakiin haddii aad gym haysan oo gym aadan waxa gacmaha ku qabsan kartaa gacmaha waxaad ku qabsan kartaa bahalkan yiraahdo jawaan baris ku jirto jawaan sonkor ku jirto dhagax ilmaha gacmaha ku samee ya bedelkeedii culayskan wuxuu rabo noqon karaa xaliimada aadaasta garabka u suran xaliimada culays waa xaliimadii ku joogto oo gacanta ku qabsad ku samee inta rabtid tan kale exercise-kan wuxuu kala ku fiican yahay culayska taad ka samayn kartaa waa ku celinaysaa ilaa murqaha dab ka kaco faham reer waa ku celinaysaa ilaa murqaha dab ka kaco xaqadu waxay tahay lama tiriyo exercise ka waxa la tiriyaa markii ilaa dab ka kaco oo mar dambe samayn karin baa la joojiyaa anu dadka uma sheego inta samee waxa laga yaabaa 10 xabo inaad dareemin laakiin 30 markaad ma samaysid uu dab ka kaco ya ninkan adana wali isbaran sheekh Axmed baa la yiraahdaa ninka ما يمقع ما بحنا فرح ما حدير باليران كان يا لجموا مركز اساس باو سمينيسا waxa u gudbayna exercise ka saddexaad kawad ya ku cesho daawasaas u sameynaysid videogan download garayso ku cesho soo ma jeed u sameynay exercise ka afraad hadaan u gudbo waa midka loo yaqaan bahalkan yiraahdo seated calf raises baa loo yaqaan dumbbell on the knee exercise kan wuxuu ku fiican yahay saa uga jeedid horta daawo waxay intaan ku sharaxan daawo waxaad sameynaysaa
meel ayaa ku fariisanaysaa oo lugahaaga iyo baridaada ay siman yihiin baridii waa tanaa lugihiina flat inay u toosan yihiin baa la rabaa baridii halkaan markaa fadhiid marka couch ama miis ama wax adigu siman baad ku fariisanaysaa farahana waxaad saaran kartaa bahalkan loo yaqaano bahalkan mashiinka oo jimka laga helo haddii aad jim haysanna wax kale ama baaquli ama digsi yar oo gambisan wax adigu aan aad kor u qaadnayn oo adigu thickness xoogaa halahaas leeg baad saaranaysaa wuxuu rabaa noqdo ya lama weynayo buugaag ha noqdo buugaagtoo kale aad buu fiican fikrad fiican bingo fikrad fiican ya buugaagtoo kale wax yaroo ama adigu adag yaad saaranaysaa farahaad saaranaysaa kadibna inta maxaa ku bedeli kartaa inta qofka xariimay ugu fariiso dhe ama bahalkan saaxiibkaaba inta lugaha jilbaha korkooda igu fariisaya laba saaxiibadaa leedahay laba lugood ugu kala fariistaa leedahay laba xaasadaa leedahay ilmaha waxaad leedahay aabe inta kusoo fariista lugaha korkayga inta markaasaad samaynaysaa ka war adoo ilmihii la cayaaray siduu ilmaga inta korka kuu saaran yahay yaad lugahana train garaynaysaa war Soomaaliyeed shoo xagmad waxaa laga bartay ya exercise-ka afraad kaas wey aad buu muhiim u yahay kan weliba waxaa sameeya dadka tababaran baa sameeya kan waxaad bahalkan la yidhaahdo muhiimaddu waxay tahay culayska intaad rabtid inaad ku dari kartid ya intaad rabtid baa inta uga dari kartaa culayska ya 3 ilmood 4 ilmood dhowr kiisho bariisa dhowr kiisho sonkora waxaa rabtid saaro muhiimaddu waxaa weeye inay lugtaan saas u siman tahay isla jeena soo barida iyo niiga inay siman yihiin waa markaad fadhidid ya barida iyo niiga inay siman yihiin weeye intana wax yar kor u qaada lama rabo wax kor u dheer oo diribtiisaas waqti noqonaysa lama rabo waxa rabo wax xoogaa kor u qaada adiga laba buugo yar yar oo la isku saaro kale yaad samayn kartaa ya tan hore idin kugu sheegay codsigaygu waxa weeye inaad subscribe garaysaan YouTube-ka si aan anigana ii dhiirigelistin inaan xikmad badan iyo cilmi badan idin la wada wallahi xaqiiqada waxay tahay fiidiyoyalkan samayntooda waqti fara badan baa la geliyaa kharash fara badan baa la geliyaa wax sahlan ma aha ya clientskayga oo bahalkan page baa oo lacagta isiiya waxaan siiyaa idinkana idin siiya ilaahay dartiis idinkuna intaas ugu caawiya waana mahadsantihiin allah idin barakeeyo fiidiyoyaal kale fara badan baa idiin soo wada ya idiin soo sheegay haddaad jeceshiin kuwaan oo kale iyo ereyada aragti inaad dhisteen commentiga ayaa noo ballana ya waan ku faraxsanahay inaan commentiyaal fara badan aan arkay bahalkan yiraahdo codsanaya marka ila soo socodsii exercise-kan midda u dambaysa waxaan mataqaanaa sawir ka soo qaad before and after aan rabaa inaan arko real ya don't let me down brothers ya before aan soo xag ma daawan after aan soo xag ma daawado ya